sanadku markuu ahaa 1954 ilaa iyo 1958 waxaa dadka banaadir hoggaanka u hayay abuukar xaamud sokorow oo isagu ka mid ahaa xisbigii banaadiriga ah ee saanu loo yaqiinay markii dambena la magac baxay SNU master barbe oo isaguna ahaa guddoomiyihii xisbiga dastuurka almustaqbal iyo xaaji maxamed xuseen oo isaguna ahaa halgamaagii ugu weynaa ee dastuurada kala duwan ee banaadiriga waxay ka qayb galayeen xilligaasi shirkii qaramada midoobay ee ka dhacaya magaalada New York ee dalka Mareykanka waxay ka hadleen xaaladda Soomaaliya iyo sida loogu baahan yahay Soomaaliya inay cagaheeda ku istaagto waxay dhalinyaradii SYL u ahaayeen hormuudkii weynaa ee kaalinta weyn ka soo qaatay in SYL ay noqoto mid adduunka laga aqoonsado waxaanay noqotay taasi in Soomaaliya maanta ay ku faanto ururkii SYL dadka banaadir waa dad ka soo jeeda qowmiyad aad iyo aad magac ugu leh magaalooyinka Muqdisho Baraawe marka iyo meelo kala duwan sidaa awgeed waxaad arkaysaan sawirada imika idiin muuqda inay yihiin kuwii ay ka qayb galeen shirkii qaramada midoobay ee ka dhacayay magaalada New York ee dalka Mareykanka sanadihii 1954 iyo 1958 waxay tageen dalalka midowga Sofiyeeti ee Ruushka iyo dalka China ayagoo loo ogolaaday ilaa 50 dhalinyaro ah oo ay tababar siistaan maxamed awas mudday boqorka bartamaha Germany